السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سكستا إذين تهيبا وسلامتيهين كوسو دوادا برنامج كينا دنجر شو برنامج aan badanaa uga hadalno ama aan kusoo qaadano waraysiyo iyo arrimo kale oo bulshada Soomaaliyeed saameyn u leh qaybtan barnaamijka maanta waxaan jeclahay in aan taariikhda gadaal ugu noqono xilligii xornimadoonka iyo xorriyadda Soomaaliyeed maadaama aan ku jirno toddobaadkii xorriyadda 26 ka soo bilaabatay ilaa 1 Juulaay ama Luulyo ay tahay toddobaadkii xorriyadda oo Soomaali meel kasta ay joogaan u dabaaldegaan ama ay xusaan waxaan jeclaystay marka inaan idinla wadaago waraysi aad u xiiso badan oo hadda muddo dheer ka soo wareegatay oo aan la yeeshay abwaan macallin Cali Miro Cawaale allah u naxariisto naxariisto janno allah siiyo waraysigu wuxuu ii ahaa runtii waraysigaas fursad aad u fiican oo aan kula kulmay kuna bartay macallin Cali Miro Cawaale allah u naxariiste oo runtii ahaa qof wadani ah oo jecel inuu dadkiisa uga faa'iideeyo khibraddiisii iyo waayo aragnimadiisii maadaama uu u soo joogay xilliyadii kala duwanaa oo dalkeena iyo dadkeenaba ay soo mareen ha ka soo bilaabato xilligii gobonimodoonka xilligii dalka uu xoroobay oo gacanta isticmaalka uu ka baxay oo xorriyad aan helnay oo dowlad noo dhisantay xilligii burburka oo dalkeena uu burburay iyo xilliga maanta aan joogno oo ah waddankeena uu federalism qaatay iyo annagoo qurbaha hadda degan oo qurbaha dad badan oo Soomaaliyeed qurba joog ay noqdeen marka meelo badan uu taabanaya waraysigan dhinacyo badan uu ka hadlayaa wax badan aan runtii kala bixi karnaa ay ka faa'iideysan karnaa waraysiga wuxuu ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio markii aan hadal idinku daalin waraysiga maadaama uu dheer yahay laba qaybood aan u kala qaybiyay qaybtan ugu horeysa marka hore ila daawada ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan caalamka dacaladiisa waad salaamantihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeennii danjir anigoo Basra Maxamed ah ayaa barnaamijka idiin soo daadaheeya halku toos idinkaga imaanayana waa stuudiyaha danjir ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa maanta aan aad ugu faraxsanahay inay noo suura gashay inaan ku socodsiino barnaamijka macallin abwaan aan filay inaad wada taqaaniin ama badidiina aad taqaaniin waa ustaad Cali Miro Cawaale oo ah ninka heesta Soomaaliyeed toosooy ee ah national anthemka ama heesta calanka Soomaaliyeed ee soo alifay maadaama aan ku jirno toddobaadkii loo dabaaldegayo ama xuskii calanka sanad guurada calanka la sameeyay ayaa waxaan fursad u helnay inaan macallinka ka soo qayb galino barnaamijkeena waana ku mahadsantahay sida aad nooga soo qayb gashay aad nooga ogolaatay ku soo dhawow barnaamijkeena Danger Show waa mahadsantahay nagu soo dhawahay barnaamijka Soomaali waxay yiraahdaan ma la yiri hawdiin ogaal yani waxaa la weydiiyaa marka qofku aad weydiiso wixii kaaga jawaabaya marka haddayna hadalka aan ku soo dhawaado waxa aad adigu doonaysaa in maanta laga hadlo maxaa ka mid ah aad weydiin kartaa markaad weydiisaan kaaga jawaabaya maxaad rabtaa inaad ka hadlo waaga waxaan marka hore ku bilaabaynaa marka aan ka wareysanayna maadaama toddobaadkii calanka sameyntiisii xuskii sanad guuradii toddobaad 6aad aan malaynayaa ka soo wareegatay calanka sameyntiisii lagu jiro wax ma inooga sheegi kartaa heesta calanka sida ay handasaadeeda u bilaabatay inkastoo aan maqlay waliba heesta calanka heeso kale oo adiga aad door bidaysay ayaa jiray oo heesta calanka markii aad soo aliftay marka xoogaa noo sheeg sidaad u curisay ama heestaas u soo saartay horta heestan aan badanaa aan qaado badanaa ilaahdo heesta calanka lama yidhaahdo waxaa la yidhaha heesta qaranka heesta calanka waxaa iska leh nin reer Burca ah oo la yidhaha Cabdullaahi Qash waana heesta ah qolaba calankeeda waa cayn taas heesta calanka innaga keena waa cirko kale taas heesta calanka loo yaqaana tan Soomaaliya toos waa heesta qaranka haddaan markaas u leexdo taas heesta qaranka oo laga yaabo mid u weyn aad doonaysa inaad weydiiso inay tahay horta dad badan baad ka sheegta حتى أنت بيت كهر يقاطان أي واحد هسكله إركله إذا كلا عن كوي جاهين يقول صورا أنا
هذا هو كوبية وصدوائية معها سويان ويان وحنا تريجي جولاي بيش جولاي أفرتني صواري كل يسقال وقول أفرتني صواري heestan Soomaaliya toosoo صواري توصل يقولنا هاي الموطنين ما عين كاس عني أنا أدري وين هين وشيء ذي ما يهين مرض ما ضل وقعتي يعني هس وضرية هذول الحوجية وحي هاي سكوالك الشيخ اللي يدور معلن كها معلن تقوى وصي يانها جونيور كها marka garaadada iyo salaadiinta iyo madaxda iyo Soomaaliya yimaadaan yaa lagu soo career dhalinyaro oo qaada iskuulka ay waxa qaadan heeso ay ku soo dhaweeyaan marka heeso waxay ahayn heeso carabiya yahay marka sanu waa fikir waxaan iyo dadkan aqoonsha iyo salaadiintan iimaanaya iyo garaadada iimaanaya iyo heestan garamayaan mid ay fahmayaan ma isla hees afcaal loo qaadaya marka erga taasay u kaleftay oo aan heestan Soomaaliya toos aan ku tiri waxaan ahayd bish July baa tiriyay afardeen Soomaali hadda bala ma sheegtay qad bala ma sheegtay laakiin waxaan walaalayaa waxaan Google-ka loo yaqaan hadii aad gasho waa lama ka heli doontaa inta heesta tirisay waa gartay waagaag marka sida hadda aad sheegtay heestaas waxa tiri ma aha heesta calanka waa heesta qaranka marka heesta calanka annaga waxaan u maleynaynay Soomaaliya toosoo dad badan aan u maleynayo sideedoo kale inay haystaan maadaama calanka marka la saarayo heesta loo qaado ee tahay heesta qaranka la yiraahdaa heesta calanka waa qolba calankeeda waa cayn waxaan leeyahay ninkaas Cabdullaahi Qashaar tiriyay tana waa heesta qarankana xoogaa ka kooban tahay beydad هذا البيت كانت هي مركز تضبطه وإحنا وقشك بيتك بيتك وحي أحد وحي Soomaaliya toos oo isku tiirsada hadba kiina taag daran taageero weligeen idinka isu tooqayo oo idinka isu taamaye aadamuhu tacliin barayo waddankiisa taamiyey tira ariyahoo dhaxala yaa laydin soo tubay sidii tira ariyahoo dhaxalaa sidee laydin soo tubay oo nimatooda la meel maray oo cadawey laydin tagay halkaa waxaan ujeedaa waan layda qabsaday oo dowlado Kenya in bay haystay Ethiopia in bay haystay qolaba in bay haystay macnaha saasa halkaas aan sheegay tira ariyahoo dhaxalaa sidee laydin soo tubay oo nimatooda toban la meel maray oo cadawey laydin tagay tuldageelahoo dhacan yaa toogasho uba dheedhaan ma dhulkaa dhanay tiray baa nina dhagaxo tuuray yani geelba nin baa geel dhacayo xoogaa geel dhacaya markaasaa isugu tagtaan oo ku diritaan oo markaas dad badan ku dhintaan tuldaha geela maxaa dalkaas dhan haddii idin diiday inaad u qiirootaan tahay tuldageelahoo dhacan baa toogasho uba dheedhaan ma dhulkaa dhanay tiray baa nina dhagaxo tuuray qaran aan hubku tumayo tooreeda dhaafay oo aan taar samayn karin oo ku taalo weyna yani qurun iska dhan wax allaale waxa ay samaysto ku dagaalanto waxa ugu weyn tooreeda marka yani halkaan dib waa ka dhaliilaya waxaan lahaa Soomaaliya waxaa u diiday inay Soomaalidu wuxuun samaysato markaan waxaan leeyahay waan qiirooda waxaan leeyahay hadba waxaan la taahaa oo togaga uga qayshaa nin dalkiisii cadow taabay oo u tali waayay baana yani saas meeshaas waxaasaay kasmaan adigu heestu herta waa caynka intaasoo beesha ka ma todobida ka go'an tahay marka waxaa jira beyd gooni ah oo badanaaba aan dee qofkii gabayaa ihi waa arkayaa inayan la socon oo le ta ay ku bilaabantaa ku socota ayada oo alif ku socota oo ah hadba waxaan la ooyayo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadaana taas yaa ka mid ah laakiin kuwa kale oo dhani ta'daasay ku socotaadoo heestu waxa weeyaan marka dadoodaa sheegtay kuwa sheegtay waxaa yiri kuwa sheegtay baa oo yiri annaga anaa tiriyado waxaan tiriyo kontonkii intii markaasaa nin BBC-da ka shaqeyn jiray Cabdullaahi Xaaji la oran jiray ayaa markii uu maqlay yiri oo anaaba 48 anoo yar meesha leegada ka qaadi jiray
أنا واحد تري مرت يرتدي بنتي هذا مركب واحد تري ضد أنا أساس كشيفته واحد كلا جبت كوا أنت قاتين أنت بيت كوا قاتين كوا كلا ريك كلا بسمي ولكن سؤال توزي ما بيتشتا كوا كلا كوا يجمع heestii markaad soo celisay heestan waxaad joogtay saa sheegtay dhulka hadda loo yaqaano Somaliland iyo dhinacaas goorma marka xamar keentay heestan goorma calankii looga dhigay heestii astaanta calanka ama heesta qaranka goorma isu bedeshay xilligeed heesta horta markii aan tiriyay aan sheekh aan joogay in dareewala oo dareewadii sheekh kamid ahaa ayaa soo qaado wuxuu keenay gaalka ayuu keenay markaasaan u sheegay qola dhalinyaro horseeda oo in isbariijo la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo daawud timadire iyo ku qolkaasaa yaa faafiyey oo xoog u yeelay markaasaa khaasatan ninkaa daawud timadire aan leeyahay ayaa geeyey xamar markii xamar ay tukaleen dee way ku fidtay xamar bay ku fiddo markaasay meel walba dee magaalasa laga qaaday oo laga qaaday iyadoo dad sidaa iska ah yaa markii dambe la yidhi anigoo maqanoo sacuudiga jooga dhowr iyo kontonkii ayaa la yidhi heestii talyaaniga ha la bedelo oo hees qaran ha loo qaado hees qaran oo Soomaaliya hala sameeyo markaa dad badan baa heesahii sheegtay oo ama heesahii yidhi aniga tayada hala qaado tan hala qaato markaasaa la waxaa loo qaadanayaa Soomaaliya toos la soo doortay yaa la soo doortay inay noqoto heesta qaranka markaas muxuu ahaa ayaa la isku raacay dee in heestaas anigu aan leeyahay oo waxaa la qoray heestaas intaas heesta qaranka loo qaatay marka heesta qaranka iyada loo yaqaana heesta calanka loo yaqaana waa tan aan leeyahay waxaa tirin jiray ninka burcaa tiriyo Abdullahi Qashir laakiin waxaa leeyahay heesta qaranka ayaa la yidhahdaa وانا هسه مركا عالم كبدنا والله صار يلا قاضي ولا ستاقو ويا واتاس وسنة كم مركا سنة كم أنا واحد تري هرت سنة شيء أفرت طولي ما تري بش جولاي يعني تري لكن مركا الواقعتي يعني هس قرن لقطه وحي بانو ولا يعني هاي شن يتضباطن كي ولا شن يتضباطن كي واحد بدنا أول حي أحمد مول حي أنت أساس قرن ما ينجرن ما جرين مع غادي ثانية بالثانية يعني غادي هس قرن واحد إذا حرني ماذا لقاته حتى هتعرف حول لقاته هس طليان اللقاء الجري هس ثانية لقاته بس تسأل جوجل دي على كل حال واحد ماشي جوجل إلى ماشي BBC اللي ويقول لي يابو عدة قرطي وحال قري يستوى أري وحريه الله لكن أنا عد بأشيء هي بتشتي قرطي قصية قرطي أو وحي واحد تريين على الملل اللي له وإنجليز كبغي وردوله ما بيقول شيء واحد يقول شيء ما بقول قصدا واحد شري برجاس وحالا نبع سيدا إمكا الأمريكان قوي يعني بس وشيء قال محيط بلدي نكشي اللي شري معها نجيك كوينه ها وشيء قال قاعدة مينه القاعدة هي الرشاق أي واحد شري يلا غاب قال لي هذا واحد شيوعي لا كومنست بجلس لي نكاس سوى شيوعي أنا نشري ما هي صار أنا تري شيوعي قال وش يشري أنا هوش أنا يقول ما بنا نقول شيوعي وحويه بجلس صح ولا جلس ولا شيوعي ما بحي يشري مركا وحيا مقعبة اللي وش يشري لكن أنا وحول ضمن كمان الله هنا أنا وحين واحد صومالي مقرانس لوك عيش عروس لوك عيش عروس يوم النجاة هاي وحاس يكمل يصير شققوانا الله على كل حال مرحلة دي والمشي استعمال وتشوفه كم أقولا إن محاها من المرأة ذلك أقوته صح والقد يلبى كسور جيريا من أمريكا هست هرتصاصي هست كاي يعني لا يعني وحي هاي هس ورمكا إنجليزك وقال لها اللي oo haystay de markaa Soomaaliland la yiraahdo meesha sheekha aan doonay joognay yoo qayb qabsaday markaas waxa jirtay nin in Xaaji Ibrahim ciyaar la yiraahdo oo ninka caanka ah Ibrahim Maxamed Xaaji Ibrahim la oran jiray aabihi Xaaji Ibrahim gaasa laga siiyay meel inuu sheekh ka nisbo markuu meesha doonay inuu jeexo ayaa kii tacliinta u sariyo cadaan ah yiri oo Soomaaliga halka digta qayladiisa ay baxaysay
ويقول له وياي ماشي ودمعين wax ka dhisto ماشي اللي سيني كان ها يجري في تعليم تسرية يجري صواني هالكا دقة قيل لي هذا زي واحد وكسر الله قال نقول ماشي لسين لها ها marka tuwaas iyo eraydaas ayaa waxyaha soo baa oo ahaa wixii ugu xigay tan dambe heesaba meeyatiyo ay wax loo sheeg marka oo ingiriiska Allah hadlayo aan leeyahay wallahi ingiriiska waxaan arfaynayso wax anagu xaq lagu ma aan leeyahay sax wala waxay ahayd dhulkiina aan kala deyrto idin diido xaqiina dantiin yaan cidi eegin isla eegu dulqaata wallahi doonaguma aan dayuurada raaco samadaa iska duulo dushaa kaaga imaado adda doonnaha yeelan wallaahi doonaguma daara fooqle aan seexdo calan haydal dallaado adna daarad jiiso dibnahaaganaan dhowro wallaahi doonaguma dowladdaanu islayno raggiinaan u diraayo wixii looga dilaayo duudsi aanu ka yeelo wallaahi doonaguma soomaalidii dagaalka ka qayb gashay ee barma iyo lagu laayay marka lagama bixin Somali ها oo ay ka xayeen ciidanka ingiriis ku dagaalamay ha soo askartii ingiriis ay kamid ah barmay ka soo dagaalamay barmay ka soo dagaalamay waliba waxa la yiri waliba ninka hadlayo ingiriis uu sheegay waxa yiri nimankaas ay u dagaalameen yaa baya wax yaab leh ayay marka waxa la dadkaas ma laga bixin marka waxa la dhulkiina aan kala deyrto idin diido xaqiina dantiiniyaan cidi eegin misal igu dulqaata wallahi doonaguma marka heesta waxa loo yaqaan maqalo oy heesta loo yaqaan maxaa yeelay bari marka aan fasaxahay yaan buug af carbeed ah oo waqti carabta ku qoran tahay gaagaaban inta iska qaato Soomaalida dibarigaas wax fiican dadku ma akhriin jirin yaan inta qaato yaan buuggaas heesaha muxuu ahaa sheekooyinka ah inta qaato yaan sidii midka akhriyay iska dhiga markaasaan dhulkiina kala deyrto idin diido xaqiina dantiyaan cidi eegin misla igu dulqaatay wale doonaguma darafo wale aan seexdo calan haydal dallaado adna daaradda jiiso dubnahaagana dhowroy wale doonaguma saasaan u qaadi jirin ما شاء الله markaasa waxa la wajhi raay dadkaas aad baraqo jireen marka heestaasa ka xoog badan Soomaaliya toos laakiin hees caanan yeyma noqon sida caan ku noqotay yeenu noqon waxa la yiraahdo waxa lama qalooy ما middan hadda Soomaaliya toosoy marka aad soo saartay oo aad soo celiday heesta soo saartay saa sheegtay dalka markaad isticmaal gacantiisa ku jiray marka sidee kugu suura gashay adigoo heesaa soo saaray inaad ka badbaadid ama maaragtay waa adiga sheegaya inay dadka maaragtay khilaafa ama iyaga ka hor yimaada ee shuuci ku tilmaami jireen oo markaa dabagal ku samayn jireen marka adiga dabagal laguma samaynin wax dabagal oo ma waa jirta leegu saniyado waxaa jiray nimankii ingiriiska ahaayey waqooyi xukumayay ninkii ugu kulaa oo la oran jiray kama baa Soomaalida u taqaan كما يبي سؤال بتقولها isagoo ii soo dhaaranayo wali waxaan maqlay wiil shuuciya yaa jooga muxuu ahaa meesha Amuud magaalada Amuud la yiraahdo macawalada Amuud baan yaa waxaan ka ahaa macalinka ahaa markaasuu yiri halkaas jooga markaas ninkaas doonaya inaan u tago marka waxaa jiray wadaad sheekhaho shir laga maadi magaciisa la yiraahdo oo gaaban inta leeg inta weeyay waa cilmi wiilashiisuna way raaceen isaga raaceen ama bal amarka ilaahay hablihiina mid walba inta laan ka leegatay oo qurux yaalisa marka wadaadku ayuu la yiraahdo waa wadaad oo yaamooji karaamaad yaalwan jiray qaar ba u yaadeen sheekho Ali waxa ku soo socda ninkii kama oo ku soo socda rasi u soo dhaaranayo waa la sheegay oo yimid oo ka soo kacay halgeesana soo kacay soo socda markaasuu gacantiisa intuu saa isu barbariyey uu yiri saa intuu kala fiiriyey ma iga sarkayaba anigu waa fadhiya markaasaan ku qoslay waan ku qoslay maxaa garanaya أنا كحجابي وكوضع. ها ما يلا كحجابي إذا كما يبغي. لازم يديو
markaasaan muxuu garanaya halkan la sheegaya halka soo socda amarka ilaahay marka uu booraba yimid waa dhinaca midland jooga iyo 5 kilomitir bay isu jiraan markaan halka jooga oo la sheegayay yaa isaga taragaan kusoo dhacay degdeg kusoo baxa kaasuu dib isu rog marka خلاص دي لأنه مركز يقول لي يقولي مركز حاجة دي وحوا واحد وقت أو أنا مكان ليك يستيمي يشتري وهاجا هذا مركز هذا كلا إيو السوقان كلا أترسي مجران واحد شفتها مثلا قوي بعد شراء محوها لقوا لقوا سكندريكا السؤال يعني يقول يعني يقول على قلبه سيلبس waxaa ku jirta hawiyada barnaamijkan loo dhigo kalaaska secondary-ga kalaaska labaad ayaa lagu qaniyo waxaa la yiraahdaa heestaas waxay ku saabsan tahay waana waalid baa loo yaqaana waana waalid waxaa jirtay haweeney baa intay 6 hablood intay dhashay hawlaha عن هذا مال مرض مد ولا مال ولا شيء هو مقعله يا هبلهاس هذا يدمت تيوب دمستي بيكون مرة تيوب دمستي مركا كان دقلين إمكان قوية كويسة مركا سوى حويا دول قرن صح أوين هي إبلاء هبلاء لين سيدا قالوا كا أنت بدل خاصان خلو هو بقولي قايل waxaad moodaa inay ka duwan yahay gobolka koonfureedka adigu calaa kulli xaal sidii way isku wanaagsanayeen laakiin sidii la doonayay mayna ahayn markaasaa marka ay yaraha ka yaraha caroodaan ayay qolkooda isku xidhaan iska fadhiyaan gabadho iska fadhiistaan markaasaan aniguna waxaan jeclaystay inay isku xidhineen inay kuwa yaryara dhashay ay qaadaan mid halkan matagaya ka hagaajiyaan oo qaadaan oo soo baxaan caawiyaan marka hablaha gabaygaas u tiriyey waana waalid la yidhaahdo marka hablahan la hadlayada waxaan lahaa iyagan gabdhahaya aan lahaa iyagaan ma garanaysaa sheegayaan lahaa idinkaba dhib baan idiin soo maray alla maxaan saa idiin galay maxaan waqti idin qaaday waa ka oo aan leedahay idinkaba wax badan baan dartiin daal u soo maray duleed lagama helin xoolaha iyo daarta huridaane dagaal baan usoo galay waxaad duni arkaysaane dab baan shiday intaan daanga dubay rooti duhur qaaday daryeelkiina awgeys xawaash duwarna soo yeeshay daryeel idinkaa dareemane madayara diirta igu taallay allah yow daraadiin maxaa daana igu gaadhay kolkood diiga iyo aagadiin dalag maxaan raajay dulbaax iyo barwar iyo maxaan darag idiin keenay midii duleedelay dhexe maxaan daawada u kiciyey durxul hadal markaasaa markaan idhaahdo waxaan iyaa sameeyey duqdi tiraahdo iyaga sameeye ama koob bahal baa jabay yaa jabayey ay tiraahdo oj cid jaysa ma garan maayo markaan aniga qabsanaysa markaasaan ma garanaya la jeedee iska ka dhaaf hadalka durxul hadal naag tidhi allow diiqa waxaan geliyey marmarka qaarkoodna waxaan leeyahay idinku qalad aad samayseen iyo waxaa idinku raacay dembi aad samayseen maxaan duulo kala saaray marka suugaantan aad tirisay hadda heestan weliba aad gabaygan waa gabay soomaha waana waalid gabay buu ahaa gabaygaas ma la qoray aad iyo aad wuxuu egyahay gabay aad u qiimo badan waxaa lagu dhigaa secondary-ga lagu dhigi jiray haddaan isbedelin imada marka soo maqnaayeen kulley waqooyiga Soomaaliya Somaliland Soomaaliya baan noqon xamar Somaliland macnaheedu waxa weeyaan dal Soomaaliyeed maxaa ahaa dhulkaas oo dhan lagu dhigi jiray muddo dheer baad macallin soo ahay afka Soomaaligana si fiican aad ula socotaa taariikhdiisa marka waxaad noo sheegtaa waxaan inta aan hadda kala socdo aniga in af Soomaaliga markii la maaragtay la bilaabay in la qoro ama markii la isku keenay handasaha in af Soomaaliga la qoro waxa ka xogaa khilaafa dhacay in afkii la qaato af luqado kala duwan ama maxaa la sameeyaa iyo waxyaabo badan la isku khilaafay marka arrintaas sida ay u dhacday maadaama aad adiga waqtigaas xilligaas aad joogtay wax ma inooga sheegi kartaa
iyo afkii markii dambe sidee lagu keenay afkan Soomaaliga maanta aan haysano horta waxay ahayd 58 oo dowladnimada markay dowladda qaadanaya soo dhaweey yaa in waa in la sameeyaa far la qoro far qoris Soomaaliya la sameeyaa markaasaa waxay noqotay in carabiga iyo waxa lasku la yareebo adigu carabigii waxoogaa baa yimid oo waxay erayo marmarka qaarkood aan la qori karin carabadu ereygan ma laha xarafka ma laha oo iyo midna ma laha iminka haddaad tiraahdo god haddii farta carabiga lagu qoro god haddii lagu qoro iguma qori karayo ama gud bay noqonaysaa ama god bay noqonaysaa haddaad godana god bay noqonaysaa haddaad kor noqdana god bay noqonaysaa laakiin xarafkan muxuu ahaa ooda ah luqadda carabiga kuma jirto kan eedaana kuma jirto sida awel baa carabigii baa luqadii Soomaaliya waxa ku adkaatay magaranaysa carabigii baa adkaatay in Soomaali lagu qoro carabi lagu qoro marka nin reer caabud waaq ah oo yaa markii dambe fartan hindisay oo yiri saamaa la qaato fartan hadda aan haysano aan qoro markaasaa la qaatay iyadoo la qaatay kuntii sideed iyo sagaalkii baa la qaatay markii la qaatay leeyahay horta hal la qoro ayaa masaarida ahayd oo kor inaga xukumay marka waxa si doqol ma garatay inuu talinayay Atlaaniga iyo masaarida iyo si doqol ma garatay inuu talinayay markaas kuwaas jaraadkoodii waxay ku qoreen Soomaaliya waxay qaateen fartan Latin baa Latin markaas Soomaaliya waxa qaaday Soomaaliya waxa qaaday far leeyahay Latin diin ma jirto markaas hadda laga baqado laga xawlo meel la iska dhiga waa idin cabsi gelinaya markaas laga hayloogin markaas meel la iska dhiga markii raxmad jannaha la siiyay maxaa siiyay la ruba qasday dhulka ayuu yiri war fartii berigii la isku raacay in la qorro ku qorra oo ku dhaqaaqa markii hore marka la qiyaaso Soomaalida 3% baa qoraysay 3% qof kaliya ayaa qorayay laakiin markii fartan ololihii la qaado ololihii wixii la sii daayo soo la waray waxay noqotay 67% yaa wax qorayay ma sha Allah muddo yaro 7 bilooda ayaa heerka lagu gaaray marka xitaa waxa jirtay dawladda inagu dacay inay ugu daydaan Yaman iyo Ethiopia iyo wadooyin inagu daydaan sidaas barnaamijkaas oo kale inay sameeyaan يعني waa sida marka waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaalidu ay hore ugu martay ay keentay waxa kamid ah horta waxyaabaha lagu faani karo ma wax yaab leh bay noqotay arrin yaab leh bay noqotay boqolkiiba 80 Soomaali maanta waxay qoraysaa ama boqolkiiba 9 ma laga qorayo berkii hore boqolkiiba 3 baa qori jiray waana waliba waqtigaas isaga ah waxaan filayaa inuu yahay waqti dawlado badan oo Afrikaan ah inaan fartoodaba soo saarin fartooda macnaha qoraal ahaan aynu qori jiray Soomaha wax lagu faani karo way waa mid kale Soomaalida dadku laakiin qaar badan baa u fiirsan hortan waxay tahay waxyaalo badan bay kaga duwan tahay muxuu ahaa luqooyinka kale ay kaga duwan tahay af Soomaaliga sidiisuba haddii laga shaqeeyo waxaan ku leeyahay carabiga iyo ingiriisiga iyo waxaas oo dhan waxa laga yaabaa inuu banaanka dhigo oo ka horeeyo maxaa yeelay waxyaalo badan oo iyagu Soomaali ay leeyihiin yaana ilahayn ingiriisiga iyo aan lahayn carabiga iyo lahayn haddaan tusaale yar ka siiyo مثلا muxuu ahaa ingiriisiga haddaad dhowr shay oo sidaba yaalla aad doonaysa inaad tilmaanto waxaad odhanaysaa ama meelo here iyo there waa here iyo there waa labada qora carabidana waa si leeg waa huna iyo hunaak صح labada kaliya weeyaan laakiin Soomaaliga waxa weeyaan halkeer halkaas afar ama shan yaman waa halkan halkeer halkaas
وأفر معناها سيدة يسوق حيجان هلقي قلنا لما كيهين واقع taasi waa midda kale ee waxa weeyaan inanka quraardan maashin meesha miiska ka saaran tahay carabda waxay ka saaran tahay oranaysaa jam ka saaran hadday adaraf tiradana daraf ay ka saaran tahay ingiriisana side bay ka saaran tahay ama corner hore inka sukaya corner ka saaran tahay ama h ay ka saaran tahay صح laakiin waxa laga yaabaa inay saddexdan ay qolada dhaafsanay صح qolada labada dhaafsanay لكن الصومال واحد كسرنت الجيش كسرنت ضعف كسرنت بالب كسرنت هرير كسرنت كوي كسرنت جبت مي كسرنت دينع كسرنت صومال waxaad tirisay waa 7 ilaa 8 waa 9 waan maleeyay arda hay hadana daqaad ilaa sane waa 9 iyo meelaha marka saas luqada Soomaalidu ay aad iyo aad u xoog leedahay waa mid kale ee ilmaha adeerka dhalay محو إنجليزي قوية. المها أذكر ده وكذا ها. كده ده شيء. وكذا كيو. كهوري هذا شيء. وإسلام ماشي. وكذا. لكن هو بدنا واحد من نعرفتي. المعادير. يد. وأساس يقول مساس هاي لغة الصومال أي لغة الصومال ده. ولغة غنية. حرجينا يا سان أنا وجه لي أنا أذن كانوا وجه شين. waraysigaas aad uu ila qiimo badan yahay runtii intii waraysi aan duubay waraysiyada ay ugu qiimaha badan oo ku jira waxaana aan ku faraxsanahay runtii inaan fursadaas u helay macallin allah u naxariisto cali mira cawaale waa jeclaa in noo soo warowdo mar kale xalqooyin kale inaan ka sameeyo ama aan continue ka dhigo oo barnaamijyo kale aan nooga reebo laakiin ma aanan dhicin fursaddaa noo saamax weysay haddana waa ka dhintay allah u naxariistee laakiin waxaan mar walba ku xasuusanaynaayoo kale heesta uu nooga tegay oo qiimaha badan ee Soomaaliya toosoo aan ku xasuusanaynaa intaas hadda waxaan uga baxaynaa marka waraysigaas qaybtiisa koobaad insha Allah hadii Ilaahay ma qaybtiisa kalena waa ila daawan doontaan inta hadda maanta aragteen in kale oo badan mar dhaw iyadana channelka ka daawan doontaan aan ku soo dhejin doonaa hadaa horay u soo gashay channelkan ama hadaa adan hore u soo galino maanta kuugu horeyso intaba fadlan waxaan ku leenahay barnaamijka si aad ula socotid oo barnaamijyadeena ama bahdeena aad uga tirsanaatid fadlan subscribe-ka noo taabo waana kaaga mahad celinaynaa daawashada iyo taageerista intaba marka intaan midkiisa dambe ku kulmi doono waa anigoo idin leh sidaa iyo maalin wanaagsan nabadgelyo